السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta ay bisha July tahay 2020 wararka diblomaasiyadeed caalamiga ee ku hayna dunida waxa kamid ah Shiinaha iyo Mareykanka oo isku hor fadhiya badda Pacifica, shabeel dad hortood ku cunay haweeney ka shaqeysa beer xayawaan, dood ka taagan isku day Hagia Sophia looga dhigayo masjid. halka warka kala socotaana waa Barkhayd TV. aan warkeena ku bilaabe shabeen nooca loo yaqaan Siberianka ah ayaa haweeney ku cunay beer xayawaan oo ku taala caasimada dalkaasi Switzerland ee magaalada Zurich xilli ay halka ku sugnaayeen dad u soo daawasho tagay goobta iyo waliba shaqaalaha beerta. shaqaalaha ayaa haweeneydaasi u gurmaday balse uma suurtagelin inay nolosheeda badbaadiyaan. sida uu sheegay maamulka beertaasi baaritaan ku aadan sida uu falkaasi u dhacay iyo waxa dhaliyay inay haweeneydaas iyo shabeelku isku meel joogeen ayaa hadda socda. shaqaalaha beerta ayaa sheegay in haweeneydaasi la badbaadin karayay shabeelka haddii gurmadka ay u baahnayd uu soo gaari lahaa xilli wanaagsan. shabeelka ayaa la sheegay in sanadii 2015 uu ku dhashay beer ku taala dalka Denmark, laakiin sanadkii horena loo soo wareejiyay xeradaasi Zurich. dadkii goobjooga u ahaa falkaasi naxdinta badnay ayaa dhammaan aad u warargaxay oo qof kasta halkiisii soo ku qaaday. weerarka ayaa dhacay sabtidii shalay ahayd, waxaana maamulka beertaasi uu sheegay in maanta oo axada ay goobtaasi xirnaan doonto iyo in xayawaanka ku sugan xeryaha lagu carbiyo ay halka dad ku cuneen ayaa arrin inta badan aan dhicin bay yiraahdeen, balse ma aha markii ugu horeysay ee xayawaan uu qof soo weeraro gudaha xeradaasi Zurich. bishii December 2019 ayaa yaxaas ku jiray xeradaasi ayaa gacanta ka qarinay qof kamid ah shaqaalaha nadaafadda ee halkaasi ka shaqeynayay. markii lagu fujin kari waayeyna waxa dhacday baa la yiri in yaxaaskii la toogtay, taasoo soo afjartay arrintii halka ama xiisadii halkaasi ka taagnayd. tan waa mid cajiiba oo dadku aad iyo aad ugu argixin waa sida bayaanka lagu sheegay ama qoraalka warku ku cando dhanka iyo badda Pacifica oo ay isku hayaan Mareykanka iyo China oo isku horfadhiyaan. sida wararku inaga soo gaarayaan waxa ka taagan halkaasi xurguf siyaasadeed wadamada Mareykanka iyo China ayaa isku horfadhiya. haddaba sida wararku sheegayaan ayaa waxa isku horfadhiya badda Pacifica loo yaqaano laba markab oo kuwa dagaalka oo uu leeyahay dalka Mareykanka iyo maraakiib kale oo uu leeyahay dalkaasi China. labada markab oo kuwa dagaalka ee Mareykanka ayaa sabtidii ku soo ruqaansaday badda koonfurta Shiinaha. dhacdadaasi waxa saraakiisha ciidamada Navy-ga ee badda ay ku tilmaameen howlgal xorriyadda badaha, halka militariga Shiinahuna uu ku sameeyo meel u dhow dhoolatus military maraakiibta xamuulka qaada ee loo yaqaano Ronald Reagan iyo Nimitz oo ay leeyihiin Mareykanka ayaa la geeyay halkaasi iyaga oo taageeraya dhoolatuska dhanka badaha ay halkaasi ka sameynayaan. sida lagu sheegay bayaanka ay soo saareen ciidamada badda ee Mareykanka oo ay la socdeen maraakiib dagaal iyo diyaarado ayaa waxa ay sameynayeen laylisyo lagu horumarinayo difaaca cirka iyo gantaalaha ridada dheer ee aagaasi si degdeg ah u dhaqaaqay. Beijing ayaa waxa ay sheegtay in ka badan oo kamid ah badda koonfurta Shiinaha marinka biyoodka istiraatiijiyadda oo 3 meelood hal meelood maraan maraakiibta caalamiga ee ka yimaada dalalkaasi oo dhan ama dunida oo dhan. sida ay sheegayaan waxay yiraahdeen diidmada awoodaha kale ee gobolka iyo maxkamadaha caalamiga oo ay diiday sheegashadaasi uu leeyahay Shiinuhu ama waan sheeganaya uu leeyahay isagu. waa sida hadalka uu dhigay. gelitaanka markab kuwa xamuulka ah oo Mareykanku uu leeyahay iyo ciidankiisa ayaa inta badan loo adeegsadaa sidii mid ku amarku taagleynaya biyaha Pacific, taasoo calaamad u ah dagaal loogu hortagayo kuwa iyaga ka soo horjeeda. imaatinka Mareykanka ayaa loo aqoonsaday inay tahay tallaabo xoog ah. sanadkii 2016 xoghayaha difaaca Ashton B. Carter waxa uu kormeeray 2 diyaaradood oo kuwa xamuulka qaada ah iyo kuwaas oo ku sii jeeda badweynta Shiinaha si ay xasuusnaadaan Beijing sida ay Mareykanka uga go'an tahay xulafada gobolka. isku soo wada duubo waxa hadda xaaladdu tahay mid qalafsan ama cakiran, waayo midba midka kale ayuu hor fadhiyaa. taasina waxay u eg tahay xurguf colaadeed oo gobolka dab ku sii shidaysa. mas'uuliyiinta badda Shiinaha waxay cadeeyeen dabayaaqadii June ee bishii aan soo dhaafnay in banaanka koonfurta Shiinaha ee ay ku wareegsan tahay jasiiradda Barsal oo loo yaqaan jasiiradda xisha ee Shiinaha ay xadidin doonto maraakiibta kale ee 5 meelood ee ugu horeysa bisha Luulyo, halka layliyo military Shiinaha ay halkaasi ka sameynayaan.
dowladda shiinaha waxay jawaab degdeg ah kama bixin, laakiinse markii lagu dhawaaqay labadii markab ee xamuulka qaada oo kuwa diyaaradaha xamuulka qaada ah ee Mareykanku leeyahay, laakiin Beijing ayaa inta badan loo badinayaa in ay qaadaan fikrad ah in talabadaasi ay ahayd mid kadis ah. howlgalka ciidamada badda ee Mareykanka oo aad uga yar badda koonfurta Shiinaha maalmihii la soo dhaafay ayaa horay u soo kicitimay Shiinaha. Li Humin, afayeenka taliska militariga koonfurta Shiinaha, ayaa yiri kadib hadalkii ka soo yaray Mareykanka ee ahaa inuu ku kacay fal aad u xun, wuxuuna kaloo si xun oo niyad jabin ah shuruucda caalamiga ah iyo arrimaha adduunkaba ee la xiriira. waliba wuxuu ku leeyahay arrimaha qawaaniinta caalamiga ee la xiriira badaha, waa sida hadalka uu ku sheegay. Gabriel Gifford oo ah markab dagaal oo xoolo dhaqato ah ayaa howlgallo ku fuliyay usbuucii la soo dhaafay buuri badda koonfurta. isku soo duubo labada dal ayaa iminka soo fadhiya xiisadoodan cirka ayay ku shashareerantay, balse waxaa la eegay waxyaabaha ay sameeyaan iyo dhaqdhaqaaqa ay ka wadaan baddaasi Pacifica. imikana Turkiga, maxkamad ku taala Turkiga ayaa dhageysatay kiis lagu doonayay in madxafka laga dhisay ama la dhisay qarnigii 6 ee Hagia Sophia dib looga dhigo masjid, waxaana ay go'aanka ku dhawaaqi doontaa 15 cisho gudahood. madaxweynaha Erdogan ama Tayyip Erdogan ayaa soo jeediyay in dhismahan oo muhiim ah u ahaa boqortooyadii Kiristaanka ee Byzantium iyo Islaamka ee Cusmaaniyiintii dib looga dhigo masjid. dhismaha Hagia Sophia oo ah masjid kuna yaala Istanbul ayaa waxa madxafka loogu bedelayo go'aan ay dawladda Turkigu gaartay 1934 xilligaasi oo ahayd sanadihii hore ee Cusmaaniyiinta uu Turkigu ka dhisay aasaas u ahaa ninkii la oran jiray Mustafa Kemal Atatürk. kiiskan maxkamadda ayaa wuxuu dood ka qabaa sharci ahaanshaha go'aankaasi. xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa Arbacadii ku soo booriyay Turkiga in Hagia Sophia ay si ahaato madxaf oo aan laga dhigin masjid. Hagia Sophia ayaa markii waxa ay muddo gaaraysa 900 oo sano ahayd kaniisad, waxaana kadib laga dhigay masjid kii ugu muhiimsanaa taariikhda Cusmaaniyiinta muddo 500 sano aan idhaahday kadib qabashadii Istanbul. Patriarch oo ah madaxa ruuxiga ee Kiristaanka Orthodox-ka caalamka isla markaana fadhigu yahay Istanbul ayaa sheegay in haddii Hagia Sophia laga dhigo masjid ay niyad jabi doonto Kiristaanka isla markaana ay kala qaybin doonto bariga iyo galbeedka. kooxo Turkish ah ayaa sanadihii u ololeynayay Hagia Sophia dib in looga dhigo masjid, waxaana baaqooda taageerayay madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in uu doonayo madxafka caanka ah ee Hagia Sophia uu ka dhigo masjid. maxkamadda Turkiga u sareysa ayaa dhanka maamulka ayaa ka baaraandegaysa in madxafkaasi ku yaala Istanbul horena uu ahaa kaniisad loo bedelo masaajid, waa sida ay warbixintaas u sheegtay. dhaleecaynta dalkeena looga jeedinayay ee ku aadan Hagia Sophia ayaa ah weerar dhanka ah madax banaanideena ku xadgudbaya, ayuu yiri madaxweyne Erdogan. ugu dambeyntii maxkamadda ayaa la filayay inay go'aan ka gaadho ama ay shaaciso 2 toddobaad gudahood. halkaasna waxa inoogu dhan warkii aad kala socoteen Bilkhayr TV. isma qaldan boo xiiso leh. nabadey.